الجوزي رحمه الله dadka salaada tukanaya shan buu kala qaado wuxuu yiri qolo salaada ay tukato adduunkan iyo aakhira ilaahay waa ku cadaabi buu yiri waa kuwa salaada marna way tukadaan marna way ka boodaan marna way tukadaan marna way ka boodaan awqadeediyo iyo jawaamicdana kuma ilaaliyaan buu yiri fawaylun lil musallin alladhina hum an salatihim sahun salaada way tukadaan laakiin awqadeeda xilligii rabaan bay tukadaan kuwa adduunkan iyo aakhira salaadooda ilaahay waa ku cadaabaya balay qolada labaad waa qolade salaada way tukadaan jamacana way ku ilaaliyaan masaajidana way yimaadaan laakiin qalbigoodu xaadir ma min albidaaya ila nihaaya salaadoodu waa sahwi kuwana salaadoodu ilaahay bay hortaala haduu doono ilaahay waa ku cadaabi hadii uu doono ilaahay waa ugu naxariisan bay culimadu yiraahdeen salaada saddexaad waxa weeyaan uu tukanaya salaada jamciya jamaacadii masjidku ku ilaalinaya laakiin markuu salaada yimaadana wuxuu bilaabaya jihaad buu bilaabaya qalbigiisa buu shaydaanku la tagaya deedna uu ka soo celinaya hadana uu la tagaya uu ka soo celinaya ka salaada intuu la yimideen ilaahay baa u qorayo ka aqbalaya inta ka dhiman ilaahay waa ka cafinaya baa la yiri salaada saddexaadna waa salaada maaragtaani awliyada istaciinu bis-sabri was-salaa waa kuwa maaragtaani xawaa'ishooda baahida ay leeyihiin markay arrin ay la soo daristo waxay leeyihiin salaad baan ku ordaya haday ciideeda iyo dayaxa isbedel ku dhaco salaad baa loo jideeyay haday abaari ay timaado salaad baa loo jideeyay haday cabsoodaan salaad baa loo jideeyay haday masiiba ku dhacdo salaad baa loo jideeyay haday muraad iyo xaaje yeeshaan salaad baa loo jideeyay haday arrin khayr iyo shar inay u leedahay kala saari waayaan salaat al-istikhara loo jideeyay istaciinu bis-sabri was-salaa duulka afraad waa duulkee xawaa'ishtooda adduunyadana ay leeyihiin waxay muraad leeyihiin hebel iyo heblaayad noogu sheeg ma yiraahdaane masaajidka intay soo galaan bay baahidooda ilaahay u sheegtaan salaada shanaadna waa salaadii nabigeena kaleey salaatu wasalaam waa salaadu nabigu yiri arixna biha ya bilal kaco salaada inoogu raaxay ku raaxaysanay xubbiba ilayhi min ad-dunya thalath adduunka waxa yaala saddex ba aniga la jeclaysiiyay buu rasuulku yiri waxa la jeclaysiiyay atiib waxa la wixii uduge udgoon wan nisaa ya haweenkana waa la jeclaysiiyay waj'alat qurratu ayni fi as-salah halka indhahayga iyo qalbigaygu ku qaboobayana salaada laga yeelay buu nabigu kaleey salaatu wasalaam marka saxaabada rasuulku salaadaas ay barteen iyaku in salaada ku raaxaystaan in salaadu ay u noqoto meel markay salaada ay xidhaan adduunyada ay ka tagaan nin culimadii salafka kamid ahaa ayaa mar alle markuu salaada xidho thabit al-bunani baa loo jiraa abu muslim rahimahullah waxa lagu yiri salaadana tukanaysid anaku waan laanahay saad ku heshay adigu salaadan mar alle markuu salaada tukanay ilmada ka daadanaysa wuxuu yiri kaabatu min ajli as-salati li 20 sana wa tan'amtu biha 20 sana buu yiri salaada ruuxdeeda dhadhankeega xaqiiqadeeda inaan gaaro 20 sana ayaan u soo tabcay buu u soo dadaalay hadda 20 sana waa ku raaxaystaa buu salaadaas kayfiyada salaada aad u tukato noo sheeg baa laga yiri wuxuu niman yahoonu safka markaan gala buu imaamka aan gadaashiisa istaagin salaada xidhanayo waxaan istixdaar aan ku soo xaadirsada qalbigayga yawma yaqumu an-naasu li rabbil alamin waxaan ka soo qaadaa safkan masjidka aan joogay inuu yahay kii maxsharka banka qiyaamaha halkaasaan markaa ka xidhaa buu salaada inaan ilaahay hortaaganahay baan soo xaadiriya ucbudu allaha ka'annaka taraah فإن لم تكن تراه فإنه يراك إلهي واحد عابداسي واحد أديكو أدو جيدود أركيسو حداد أديكو أركين إلهي جل وعلا يساقاكو أركايا وحولي مركا وحن كفكرا مركا صلاة بحديدة كي حق مديق إيجي حقي وملايكتو أي قادون لي إلهي باكو يري وحسابتها لقوقو يري صدقا هدانا كي بلحدي إيجي حقي والله قاضي كي يقدم بيي والله قاضي كي يقهر ريي والله قاضي waxay salaadu ii dhamaata aniga oo marka u dambaysa qalbigayga ku soo xaadirsaday maxsharkii banka qiyaamaha kaliga baa ku haray hadda ilaahay ku yeeri doonaaye maxaad ilaahay kala kulmi doontaa dareenka iyo shucuurta baa salaadeeda ku dhameystaa buu yiri ay reesli ninkuna dareenka ku dhameystaa masaajid anagu habeen ku tukanayna buu imaamkii salaatul isha واما ان كان من المكذبين الضالين مساجد قدام بعد امين وركعتي الا بعد صلاه العشاء انا واكو جرا صفقه هره
salaadii markii laga baxay buu imaamku yidhi war aamiinta labada halkeed ka keenteen wallaahi mid xagga unbaa bilaabo walla bilaabnu midh anagu alla waa ku darray laa ilaaha ila allah markaa mid baa yidhi sheekh kuwaas wayba qayliyeene waxa maanta muslimiin ilaa man raxima rabbii masaajidda ku tukanayoo dhan way naga dhex qayliin mooyaane adduunyaduye kulligeen gudaha ka wada hadallaa buu yidhi والإنابة إلى دار الخلود من أسباب الهداية إنه قلبي قفك النور الهداية أي دكتي وحال لقو قرتابو يري رسولك دار توارتانك وصاحبك إلا لقو بين أيو أيو قفك مؤمنك قلبي سجع العذاب رسولك والاستعداد للموت قبل نزوله والاستعداد للموت قبل نزوله على مدى صدح هذا مؤمنك لقو قرتا وحاكمد يري رسولك inta qofka muuminka ajashu aysan ku iman asaga dhimashada u diyaar man minna la yakrah al-maut dadka maanta muslimiinta nolosha iyo geerida noloshaan jecel ashyaada materiaalka iyo lacagta iyo amalka saalixa qalbigeenu haday dhibaata ay nagu timaado wuxuu u iilanayaa lacagtu u iilanaya wuxuu leeyahay lacag hadaad hayso mashaakilka way xalismaysaa khaliq ya makhluqana maanta umadu way kala garan laadahayba khaliq ya makhluq ilaahay ma doonayo qalbiga meel kale inuu u jeesto ilaa xaqiisa mooyaane waa meesha ilaahay adoonka uu ka fiiriyo buu rasuulku yiri qalbigu علينا أن نحسن منظر الرحمن منا إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ولله المثل الأعلى أو الشقادة هذه كيمة دي هذا قولك هردد هذا قلت ما دحاس كاغي ونكر ولا فديك ورم ولله المثل الأعلى هل كإلهي مجعله من الربو إن لقوا أرك جعيلك لا يعبسك لا يرجك لا يبريك لا إلى بريدي سي عبسي دي سمو يعني وحمنت كلية جرك الله شاقين كليته القلب دعمه هو اللبو لقوه هو اللبو عنده هو اللبو سنكه هو اللبو دبنه هو اللبو دقوه هو اللبو وفرسه كليه هو اللبو دربه هو اللبو بودده هو اللبو لكن قلبك هو مد كلية بحا قلبك مد لوغا دقي وحبنت كلية جرك بني هذا كما مشابه رسولكم إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب والنبي يقول ألا وهي القلب حبين باكو جرك بني آدم كا هدي حقاك تجرك ودن با حقاقي هدي باناتنا جرك ودن با بانان تاسنا وقلبك أبو النبي يقول هدو قلبك حقاقو قلبك معوكو حقاقيا وإلهي معرفة ديسا هدي قلبك معرفة إلهي أي دكتو حبنها بني آدم كو وحي نقونيان حبنا مرنا إلهي عن عسيان كيسا كدعي مرنا إلهي إني عاصيان وأدكان ما دام حمنتاسي ما أنت أي بوكوتي إنهيني وحي الربان بي إيغيان دقهيني وحي مقلان بي دقيسانيان قعمهيني وحي الربان بي قبانيان لغهيني ميشي الربان بي آذيان دقالهيني ميشي الربنا كو بحينينا هذا الكيني ماشا واحد ضناكو هاللينا فحان حسن البصري رحمه الله يا يري صد سنة من قسل أفرت سنة من كفتمن وحان سوغاري الرق يا أقوام وحان سوغاري أن مركان لجوغو عن اسكو مليني إن أنا نقول عن اسكو مليني وإمامك وخير التابعين ويان وعالمك تابعين توقع علم البناء ويان وحا هذا الكالي صد سنة من قسل بويري أفرت سنة هذا الكفتمة إيقام الصوبحين waxaan soo gaaray aqwaam markaan la joogan agtooda joogana anigu aan isku malaynay inaan ahay tuub waa xasan al-basri ninka sadaaqay hadday jirka xubinta hadday hagaagto carabkaagu uu hagaagi maqalkaagu uu hagaagi hadalkaagu uu toosi ficilkaagu uu toosi calooshaada xaaraan ku dhici mayso gacantaadu maxaarimta taaban mayso lugtaaduna meel ilaahay ka raali ahayn oo loo isticmaali maayo waxaan fahmi laanahay maanta احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إلهي أمركيس إلالي أذيك إلهي باكو إلالين
nin culamadii salafka ka mid ahaa 120 jir buu noqday daadiis ayuu gaaray tiinuhuna ma cadaanin waa 120 jir 20 jirka socodkiisu ku socda 20 jirka sidiisu u hadlaa xooga 20 jirku leeyahay sida 20 jirku u tallaabsada waxa lagu yiri da'daadii waa ta dhaqaaqi leh dhalinyaradii ka yaryaraydo way buusbuuseen way gaboobeen adoo maxaad cuntaa baa laga yiri noo sheeg wuxuu xadiiskaas ku amal falaa buu anigu ilaahay amarkiisa ilaali adigana yaa ku ilaalin ilaahay nicmada araga ilaahay kuma caasin buu yiri ilaahay aragiibu quwadii aragu ilaaliyay buu yiri nicmada maqalka ilaahay kuma caasin ilaahay quwadii maqalku ilaaliyay buu yiri nicmada maaragtaan xoog iyo dhalinyarnimada ilaahay kuma caasin nicmadii dhalinyarnimadii iyo xoogii baa ilaahay ilaaliyay ihfad ilaaha yahfadka ba ku shaqeeyaa buu anigu ilaahay amarkiisa ilaali adigana ilaahay baa ku ilaalinay inagana maanta dhalinyaradeenna eega 20 jirkoogii baa buusbuus kasratul macaasi waa macaasida weeyaan amarkaan nidhi xor baan ahay ikhtiyaar baan leeyahay waxaan doonaan eegi waxaan doonaan cuni waxaan doonaan samayn oo yaa ka yidhi xor baa tahay addoon ilaahay baa tahay haddaad xor aad tahay oo xorriyad aad sheeganayso maxaad la gaboobi maxaad la buusbuusi maxaad la bukooni maxaad la dhimani maxaad la walwali maxaad la abaaroobi maxaad la cabsani ninka xorriyad gaadhay waxaasoo dhan waa inuu ka bogsado khalaas waa xor la yidhaha ma jirto kullu bini aadan waxaa adduunyada joogoo dhan waa ilaahay addoomihiisii addoonna sifada addoonkuna waa sifadee berigii addoommaha la soo gadan jiray ayaa nin maalqabeena ayaa tegey meesha markaa addoommaha lagu gado markaa buu soo iibsaday meheradiisii buu la yimiday waa addoon buu soo gatay meheradiisii buu la yimiday markaasuu yidhi magacaabaa lagu yidhi awriyaa wuxuu yidhi maanta laga bilaabaa magaca adigu aad ii bixisaa magacii noqonaya buu ka yidhi markaasuu yidhi dharka maxaa jeceshood xidhataa markaasuu yidhi maanta laga bilaabaa dharka adood ii xidhoon baa dhar ii noqonaya buu yidhi markaasuu yidhi raashinka maxaa jeceshood cuntaa markaasuu yidhi maanta laga bilaabaa raashinka adigu aad isiisoon baa raashin ii noqonaya buu yidhi markaas war balkan eega buu yidhi waxaan weydiiyey baan igu soo celine war adu maanad ikhtiyaar lahayn buu ka yidhi markaasuu yidhi addoon baan ahay addoon ma ikhtiyaar buu leeyahay buu yidhi hada macna addoonka macnihiisu waa saas addoon wuxuu raba ma eego wuxuu raba kuma hadlo wuxuu raba ma cuno meeshuu raba isma taago suu doona uma socdo walaa tamshi fi lardi maraxa inaka lan takhriqa alarda walan tabluga aljibaala tuula baa ilaahay dhulka markaad socotana kibir iyo khoyaalaha u socon baa ilaahay ku leeyahay dhulkana ma dilaacinaysid buurahana dharar ma gaadhaysid bini aadan xariya kaadila daciifa tahay hay naga buuxa waxa musqusha ka buuxa adaa ka buuxiyey anaa ka buuxiyey hay naga buuxa dadkan soo socdo dhan waa wada bulaacad socota ilaahay baa nasakhray mooyaane waxaa nahay ma jirto waxa qiimo ku leedahay waa ilaahay taacadiisa waa ilaahay macrifadiisa daatanaadu qiimo male sindhaya kaadiya dhiig iyo biyo kaa buuxa waxay bini aadamku ay haystaan maanta ku faanayaan anaa kaa dhaqaalo badan anaa kaa fooq weyn anaa kaa meherad weyn anaa kaa reer badan ma jiro waxaasna wax ku taraya maaha waxaas man bataa bihi camaluhu lam yusric bihi nasabuhu baa nebigu yidhi ninka maalinka qiyaamaha camalkiisu uu la hadho uu camalkiisu dib u dhigo reerka uu ka dhashay hore ma u dhigayaan horey ku dhigi maayaan iimaan iyo acmaal baa ilaahay doonaya walaalayaal kun cabdan lilaahi jala wacala 60 sanaad haysataa keliya 60 kaa sana waxaa la doonayaa inaad u noolaato sida addoonka addoon baa tahay